afhayaanka ururka shabaab cali dheere oo dadkii inay ka xun yihiin iyo tacsiyad diray runtii waa la yaabo waa isweydiiyeyo waxaan hadday dadku muslim yihiin iyagaa waa muslimkii na ka dhigaya soomaalida ahaayee maxay dhahay tacsiday tirayaan shacabkii masaakiinta ahaa makal mukarama u dambeysay soo dhowr iyo 30 maanay ku dirin inta dhaawaca marka laga soo tago shaamow soo boqolaal kuma dhimanin tiyaatarka dad kontomeeyo ku dhow soo kuma dhimanin dadkan soomaalida muslim ma aha miya ee jirkoodu gubanayo ee guryaha lagu duminayo oo hantidoodii la baabi'inayo dad la laayay iyo inta dhaawaca haddii la muslimiinta halkaa 50 baa kaga dhimatay sanadkan intuu bilowday ama sanadkan iyo sanadkii hore boqolaal bay iyagu muslimkii soomaalida ka dileen kuwan muslim dhiig le ma aha miya kuwan muslimka loo barooranaye in la ilaaliyo dhiigoodu yahay ka mid ma aha miya mise ka New Zealand ee fogna waa loo tacsiyeen ka dariska le ee soomaalida ana waa la baabi'in maxay u kala duwan tahay dadka muslimka ah haddaad magac soomaaliya muslim ku baabi'isiyo haddaad magac gaal ku baabi'iso soo dilkiiyo baabi'intii un maaha haddii laga hadlayo masaajid yaa masaajid dadka ku leyn jira oo qarxin jiray weliba jumcaha shaqadar gacme yaa masaajid salaad casar jumcaha isagoo rukuucsan dilay isla jumca dhaweyto boosaaso masaajid bartankii yaa ku dilay nin ugaas dadka yaa masaajidka markuu galaya ka baxaya laaya iyadoo jumcooyin la tukanaya xamar masaajid ka mid yaa qarxiyey iyaga ururkooda ma ahayn hadday daacad ka tahay oo diin iyo ilaahay dartii ka tahay dad muslimi iyo dhiigoodii inuu qaali yahay maxay iyagu masaajidii iyo irdahoodii ugu laynayaan maxay masaajidda jumcooyinka u qarxinayaan maxay goobahoodii ganacsiga iyo suuqyadoodii ugu baabiinaya u halaagayaan mase mudan tahay warkaas oo kaleeto intaa si diin iyo daacadnimo loo qaato waxaan dhiraa dad Soomaaliyeed iyo ururka iyo inta la midka atoona inay hadda dhacdooyinkan ka tacsiyeeyaan gaaraan ururadan sidan oo kaleeta ka tacsiyeeyaan waxaan filayaa tacsiib beena way aduu markaad intaad ka tacsiyeynayso boqolaabkee disho muslina oo masaakiin makhaayad iska fadhiya kuwa suuq iska fadhiya kuwa gaadiid iyo gawaari iska saara kuwa jidad iska maraya marka adigu ma ka dhigto haddana ku faanto oo u haysato janno inaad ku galayso kii kala laaya maxaa kaa gala adiga adba waad laynaysaa intiisa ka barada u geysanaya waxaan isleeyahay inay dib u xisaabtamaan bay u baahan tahay inay ka dhahdee run ka tahay inay muslim dhiiggii daatay ka xun yihiin kanay maalin walba qubayaan inay joojiyaan ilaan dadkii waa dhammeeyeen qaraxyadii bayna ku dhammaadeen waxaa laga yaabaa qof iyo laba dowladaan u socon oo dagaal naga dhexeeyo dee 2 iyo 5 haddaad u socotay 200 ee kale maxaa u dishay waxaa wijidaa farrinta inaan iraahdo haddii ay ka tahay muslim dhiiggii inay ka danqanayaan oo dad muslimah oo la dilay oo dulmi lagu laayay ka xumaanayaan dee xumaantu iyo ka danqashadu kow waxay ka bilaabataa intaadan cid kale uga gurmanin adiga dhibkaaga in laga nabad galo almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi inay noqdaan bay u baahan yihiin ilahi subxana wataala waxaan ka baryayaa mar kale dadka muslimiinta ee meesha dulmiga loogu laayay inuu shahaada uga dhigo dadkoodina sabri iyo iimaan ka siiyo iyagana ilaahi subxaanahu wa tacaala wax ka khayroon ugu bedelo intaasaan ku kubaya kelimadeyda wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu